kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinada dunida daawadashana qiimaha badan barakooyinka ee bekorkiina ahaado fadlan daamad markii ugu horeysana soo booqata tahay subscribe iyo like noo taabo channelka mahadsanidin Musabixi Cabdi ayaa lagu eedeeyay dambiyo dagaal uu ka geystay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo dagaal baahan uu ka waday muddo bila dadka reer Sool ayaa u muuqda kuwa dhibaato baahan oo ay ka soo gaartay duqeynta maamulka Somaliland ay ka wadaan magaalada waxaa la arkay isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo burbur aad u badan oo ka soo gaaray duqeyn oo ciidanka Somaliland ay ka geysteen magaaladaas dadkaas ayaa ka hor yimid nidaamka Musabixi Cabdi oo hogaaminayo sheegana inaysan hoostagi doonin u sifeeyeen maamulka Somaliland ayaa aad u burburisay magaalada kaabayaasha waaweyn ee dhaqaalaha isbitaalada iyo wadooyinka ay la dhacday madaafiic iyo hub aad u daran ku gumaaday dadka shacabka ee ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool arintaas ayaa lagu sifeeyay inay tahay dambiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo dadka shacabka ee la xasuuqayo Musabixi ayaa u muuqda iyo maamulkiisa in ay indhaha ka qarsanayaan dhibaatada ay u geysanayaan dadka ku dhaqan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool horay ayuu sheegi jiray in xasuuqday dawladda hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre balse 2023 oo maamulka Musabixi hogaaminayo dad shacab oo ku xasuuqaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool dadkaas ayaa waxa ka go'an midnimada iyo wadajirka Soomaaliya mar walibana waxay sheegaan in ay iyagu aysan hormud u noqon doonin in la kala gooyo jamhuuriyadda Soomaaliya dadkaas reer Sool ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ku socday dambiyo iyo dagaalo aad u xun ay wadiyay Musabixi oo ka dhan ah dadkaas Somaliland ayaa Musabixi waxa uu sawiran haddii ay dadka reer Sool ay go'astaan in ay ku furanta jid dad kale oo deegaanada carafyadana ay ku soo xigi doonaan kana hor imaan doonaan maamulka uu hogaaminayo Musabixi Cabdi ay sheegtay inuu goostay uusan ka mid ahayn Soomaaliya magaalada Laascaanood ayaa waxa ka dhacay dambiyo iyo xasuuq dadka shacabkana la barakac baahan ayaa gaaray ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa deegaanka ayaa isku farsaaray maalmihii ugu dambeeyay deegaanadaas balse waxa uu muuqatay inay loo gacan sareeyay maamulka uu hogaaminayo madaxweyne Musabixi Cabdi dadka deegaanka ayaa hankool farale isaga qabtay duulaanka ka dhanka ah magaalada iyo dadkaas reer Sool ayaa sheegaya in ay ka guuleysan doonaan dambiyada foosho xun oo ka wada Musabixi magaalada iyo deegaanada u dhow ay sii socod doonaan sida ay sheegeen ciidamadii ugu badnaay ee beelaha majeerteen amba harti guud lisku yiraahdo ayaa ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Bixi ayaa waqtigu amba xaaladdu ku cakirantahay sida la sheegayo asigoo atabaadayo sheegayaan inay dhibaato amba ay yihiin kuwa duminaya Somaliland iyo nidaamkeedii dadka reer Laascaanood gaar ahaan beesha dhulbaante Somaliland ayaa muddo 30 sano ku atabaadaysay in ay tahay qaran balse ciidda ayaa waxa afka u daray dad yar amba dad oo deegaanada reer Sool jilbahana dhulka ugu dhiftay Musabixi iyo nidaamkiisa gaamuray ee muddada 15 sano ka arriminayay deegaanada SSC balse hadda waxay u muuqataa inay xaaladdu ay farahora ka baxday dadkuna ay isku tashadeen kana hor tageen nidaamka uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland ee Musabixi Cabdi mucaaradka Musabixi ayaa ku eedeeyay inuu dhibaateeyay dadkii dalka Somaliland dadka Somaliland ay kala qaybsanaan baahan ay dhex taalo hadda gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Ucid Faysal Cali Waraabe ayaa bartiis Twitterka qoraal uu soo dhiga ku sheegay in ay duulaan ka dhan ah Somaliland ay soo qaadeen wuxuu ku sifeeyay haradigii Maxamed Siyaad Barre sida uu hadalka u dhigay Musabixi Cabdi dhankiisa wuxuu ku eedeeyay in uu ka dambeeyo dhibaateynta dadka reer Sool iyo qaybinta dadka reer Somaliland sida uu hadalka u dhigay Masar Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in ay tahay in loo guntado sidii nabad iyo xasilooni looga keeni lahay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uu sheegay in dad reer Somaliland ay yihiin dadka deegaanadaas ku sugan Somaliland ayaa muddo 20 iyo dhowr casha ka wado duqeyn iyo
dambiye aad u xunxun oo fool xumay ajaafo ah magaalada Laascaanood. waxaa la arkaya isbitaalka guud ee magaalada Laascaanood sawirro laga soo qaaday iyo burbur baahan oo soo gaaray iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dadka rayidka meelay degayiin. dadka reer Soolaya waxaa lagu qasbay inay isaga cararaan colaadda baahan ee ka socota magaaladooda, iyadoo la sheegay inay daadsan yihiin dowladka magaalada ilaa Itoobiya. dad kalena ay soo qaxeen deegaanada maamulka Puntland ee Soomaaliya. halkaas ayaa waxay u muuqataa in ay dambiyo iyo faajaafo u geysay hay'adda la yiray maamulka uu hogaaminayo Macangaga Muuse Biixi Cabdi ee deegaanadaas. saraakiil sare ee maamulka SSC iyo Puntland ayaa ku sugan xarunta Laascaanood ee magaalada, taasoo ay u muuqato in ay reer Somaliland ay ku tahay mid ujeegabaxa kadib markii jilbaha dhulka loogu dhiftay maamulka uu hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi ayaa waxaa u muuqataa in uu ka xun yahay tallaabada ay ku kaceen dadka reer SSC oo ka dhan ah midnimada iyo madax banaanida, sida uu hadalka mar walba ku celceliyo Somaliland. garaadada ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa iyaguna sheegay in aysan aqbali doonin gumaysiga maamulka SNM ay ka wadaan deegaanadooda, wacadna ku maray inay ka hortagi doonaan Somaliland iyo dadka reer Laascaanood. gaar ahaan garaadada ayay ku eedeynaysaa inay yihiin kooxo argagixisa ee ka dhan ah nidaamka Somaliland, taasoo ay ku tilmaameen inay argagixiso shuraaka iyo kooxaha maamulka Puntland ay yihiin kuwa doonaya inay dhibaateeyaan amba dumiyaan nidaamka amba waxay ku sifeeyaan midnimada Somaliland ee deegaanadaas. balse Muuse Biixi ayaa ah nin afkana ka tuuraya dagaal, dhanka qoragana dadka ku dhibaateynaya, dhanka kalena dhibaato baahan u geysta dadka ku tilmaamay argagixiso. balse ay dunida ay ka mid weysay hadalkii oo ku celceli jiro ah inay halkaasi ku sugan yihiin kooxo argagixiso. garaadada maamulka Somaliland ayuu ku eedeeyay. daawadayaashana qiimaha badan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. amaana alla daawadayaal.